Sharman Boy oo ka saramaray ama ka saameey badnaaday fanaaniintii dhanka raabka ee Soomaalida aadka loo wada xiiseynayay ama ay tartanka xoogan kala dhaxaysay marka tahay fanaan ama marka tahay raabiste ama fanaaniinta way kala baxaan fanaaniin ku hayso iyo murti fanaaniin ku hayso dhanka raabka marka fanaan waliba oo soo shacbaxa waa xaqiiq inuu la tartamayo ama fanaaniin aad iyo aad u farbadan ay tartan xoogan ay kala dhaxayso ama dhankaas iyo murtida ku heysay ama dhankaas iyo raabka waxa marka tartanka uu kala dhaxeeyay fanaaniin aad u farbadan fanaaniintaas oo kamid ah Wisby Ilka Saqays way badnaay just fanaaniinta dhanka raabka ugu saameynta badan ama ay aad iyo aad u caansan taas waxay ku cadeynaysaa in uu fanaaniinta dhan ka sarmaray ama ka saameey badnaaday sababtoo tahay fanaan waliba oo dhanka raabka meeshii uu shalay joogay ayuu joogaa laakiin isaga ahaan ma joogo meeshii uu shalay uu joogay ama fanaaniintii uu shalay la soo raab gareynayay ama uu dhanka raabka muuqaalada ay iska soo duubayeen ma joogo maanta laakiin uu ka sarmaray ama uu ka level sareeyaa taasna waxay ku cadeynaysaa ama ay ku muujinaysaa heestii ugu dambeysay fanaanku la soo qaaday ama fanaankii uu la soo heysay waa fanaan aad iyo aad loo wada yaqaano waa fanaan just haddii xitaa macquul tahay in ay aqoon badanaa dhalinyarada heesaha dambe ama dhalinyaradii dambe laakiin waa fanaan dhankaas laga yaqaano qaaradaha kale ama just aad iyo aad loo wada yaqaano oo Soomaali ah oo ku heyso dhanka iyo raabka laakiin heesiisa badanaa aan ahayn heeso Soomaali ama luqadda Soomaaliga aan ku heysay sida loo wada ogyahay fanaankeenan waa fanaan aad iyo aad loo wada yaqaan ama bulsho aad iyo aad u farbadan ay xiiseyso muuqaaladiisa marka fanaankaas ayuu wuxuu la soo qaaday hees marka fanaaniinta dhanka raabka ma ahan fanaaniin just badanaa lagu bartay in ay fanaaniinta shacbahay ama fanaaniinta caalamka idil laga wada yaqaan ama ay la heystaan mar xitaa ay meel la soo fuulaan marka isaga waxaan dhihi karnaa isaga oo saacado kooban ama bilooyin kooban ee dalkiisa hooyo ka maqan ayuu wuxuu la soo heysay fanaan aad iyo aad loo wada yaqaano ama aad iyo aad loo wada xiiseeyo dhanka heesihiisa ku cadeynaysaa in ay step tahay u birin oo la soo heesi doono fanaaniin aad iyo aad u farbadan fanaaniintaas iska noqon karo fanaaniinta Chris Brown fanaaniin aad u farbadan oo dhanka raabka ku shacbahay ama aad iyo aad loo wada yaqaano marka waxaan dhihi karnaa waa step waxaan dhihi karnaa fanaaniintaasna way ka wada sugaynaa in uu la soo qaado ama heeso ama just oo maslaxada la soo fuulo oo tartan xoogan ay kala dhaxeyn doonto waana ku tagi doonaa meeshaas sidoo hadda uu ku socdo ama fanaanka uu tartan ahaan uu la galayo fanaaniintaas ajaanibta marka waxaan dhihi karnaa fanaankan waa fanaanka kaliya ama dhanka raabka u shacbahay ama Soomaalida soo ifbaxay dhanka iyo raab hadii noqoto